aan ku horeynay waxaa cirka isku sii shareerayay loolanka awoodeed iyo kan siyaasadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhex oognaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Madaxweynaha ayaa xalay qaaday tallaabooyin uu ku magacaabay dhowr xil oo dhanka amniga ah, waxaana si ku meel gaar ah agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ugu magacaabay gaashaan la sare Yaasiin Fari, halka agaasimihii hore Fahad Yaasiin uu u magacaabay la taliyaha amniga qaranka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isna ka horyimid magacaabista agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaan la sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, kaasoo saqdi dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa xigay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu sheegay in Roble uu soo dhaweeyay iscasilaadii agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin, isagoo dhinaca kalena amrayn sareeye guuto Bashiir Maxamed Jaamac oo uu u magacaabay xilka sii hayaha Nisa inuu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. warbixin ku saabsan arrintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Zainab Abuukar Maxamed. khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sii xoogaystay kadib markii madaxweynaha wareegto uu xalay soo saaray taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyay ee Fahad Yaasiin uu ugu magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka, isagoo dhanka kalena si ku meel gaar ah xilka uu baneeyay Fahad ugu magacaabay gaashaan la sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo ahaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir. hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka horyimid go'aankii madaxweyne Farmaajo ee magacaabista taliyaha Nisa. Roble oo ka jawaabaya wareegtada madaxweynaha ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa ku sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwo lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo horay hay-adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baaris buuxda ku sameeyaan kiiska sida qoraalka lagu sheegay. ra'iisul wasaare Roble ayaa mar kale faray xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay dardargeliyaan howlaha baaritaanka kiiska Ikraan si degdeg ahna loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh qabashada kiiska Ikraan. Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in khilaafka taagan uu abuuri karo jahwareer dib u dhac ku keeni kara qaabka doorashada ay ku socotay amaba lagu hirgelin karo, waxaana uu ka hadlay aragtidiisa la xiriirta warqadaha ay soo saareen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalka taagan waa xaalad ceeba oo inay dad mas'uuliyiin oo dalka hogaaminaya ay soo hadlaan ceeb ku tahay. ceebtaasna waxay miisaankeedu fuulaan madaxweynaha. arrinta doorashada iyo saameynta ay ku yeelan kartana waxaan isleeyahay adeer haddii waxay ku xiran taas qadarta ilaah iyo kartida ra'iisul wasaaraha iyo sida uu adkaysto, maadaama isaga uu markii horeba uu lahaa waajib ay ku ahayd sharciyanna uu lahaa isagana laga sugayay inay hadda arrintaana iyadaa dhacday. waxay isaga u madax banaynaya inay ciddi kale wax la haysatay ama Fahad ha noqotay ama madaxweynaha ha noqotay wax la lehed inay ka gacan banaanaato keligiis hawsha u gacan banaanaado. marka anigu isma lihi haddii isaga aanay taag darri iyo karti darri haddaanay ra'iisul wasaaraha ku imaan wax saameyna oo ay ku yeelan kartaa ma jiraan, bal waxaan isleeyahay waaba fududaynayba. arrintan hadda taagan oo culayskan sida looga bixi karana waxaan isleeyahay ceebtan si looga baxo. anagu dad muslimiin aan nahay, xaqa qofka bani aadamka qofka muslimka xaqiisuna wax kasta isagaa ka weyn. marka arrinta gabadhaas dhimatay ama kuwa kale oo aamusnay in dadku inta u istaagaan ra'iisul wasaaruhu u istaago si cadaalad loo hufnaan loo transparency leh oo aan cidna loogu eexan cidna aan looga gamban. hadday madaxweynaha gasho iyo hadday ra'iisul wasaaraha gasho inuu ra'iisul wasaaruhu inta garsoorkiisa la kala baxo si cadaalada wax loogu maamulo, dadka dambana lagu qanciyo, rabbina ay ugu dhawaadaanuna waa arrinta xalka oo ugu fiican ra'iisul wasaarahan hadda dabada haya. siyaasiyiin iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in wada hadal dhab ah laga yeesho khilaafka taagan si uusan u saameynin doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhac ku yimid, iyagoo soo jeediyay in la kala saaro kiiska iyo awoodaha dhanka dastuuriga oo ay isku haystaan labada mas'uul. siyaasiga Xuseen Maxamed Gaagaale oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan sida looga gudbi karo xaaladda taagan.
runtii khilaafka maanta Soomaaliya waa masiibo ku soo korortay anigoo taasaan ku tilmaami karaa laakiin waxa looga bixi karaa in la fariij gareeyo ama laga fadhiisiyo talada maaragtay hay'adda nabad sugidda oo lagu bedelo qaybaheeda CID-da iyo booliiska oo talada la wareego talada macnaha amniga gudaha iyo doorashooyinkaba in booliisku keligii la wareego qayb shaqadeedina loogu wareejiyo CID-da inta dawlad kale ay ka imaanayso anigu kulli taasaan tala ku soo jeedin lahaa maadaama ay isqaqabsi iyo maaragtay tuhun dambi iyo taliyaashooda uu hareeyay marka waxay la tahay aniga in taa looga gudbi karo khilaafka jira aragtidayda su'aasha weli taagan ayaa ah awoodda sharciyeed ee xilka qaadis amaba xil u dhiibis cidda iska leh labada mas-uul amaba cidda aan lahayn waa kan garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar oo arintaasi sharaxaya waxa hadda laga hadlaya xukuumadda dastuurka dad fiirsan 103 waxa uu sheegayaa xukuumadda xilgaarsiinta maxay awoodeeda tahay waxa ay tahay inay howlal maalmeedka ay wato magacaawdo joojiso inta xukuumad cusub laga soo dhisay ayaga awooddaas iska leh xilgaarsiinta awood maaha wax la isku haysto way ka weyn tahay gabar muwaadinad Soomaaliyeed oo sarkaalad ku maqnayd hay'adda nabad sugidda ayaa shacabkii Soomaaliyeed meel walba ay caalamka joogaan ayaa waxa ay doonayaan inay nooshahay inay dhimatay xaaladeeda guud in loo fasiro loo sheego way xukuumaddan waa xukuumad shacabkay u adeegaan inta gole ee meeshii joogaan shacabka soo doorto baarlamaanka waxa la yiraahdaa golaha shacabka taa ayaa waxa la rabaa in loo fasiro shacabka Soomaaliyeed la gabadha xaaladeeda taagan tiiba laga meerayaa 60 cisho ayaa jawaabna laga heenin waxa la isku haysto way ka weyn tahay dastuurka iyo wuu fasiraya wuu sheegaya si cad ayuu sheegaya awoodaha leeyahay xukuumadda iyo awoodda uu leeyahay madaxweynaha meelna qaanuunka ma siinay toos inuu wax magacaabo dhammaan markii golaha adeega soo jeediyaan golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda wasiirka amniga ayaa hoos yimaado booliska iyo nabad sugidda asaga awood u leh iska leh inuu shaqo ka joojiyo taliyaha ciidanka xoogga wasiirka gaashaandhiga ayuu hoos yimaadaa taliyaha ciidanka asluubtana wasiirka cadaaladda horta in ummadda Soomaaliyeed ay fahmaan ayaa loo baahan yahay waxa la rabaana waxay tahay gabadhan muwaadinad Soomaaliyeed cadaaladeeda ma nooshahay ma dhimatay xagee xaaladeeda tahay simple in laga jawaab in taliyaha ciidanka nabad sugidda warqad uu soo qoray yiraahdo adiga kuma sheegay waxaan u sheegay golaha amniga ee qaranka taaba dastuuriyan oo qodob tahay dastuurka la jabiyay dacwadana ma aha dacwad dastuur waa dacwo iqaab gabar muwaadinad ayaa soo maqan meel ay ku maqan tahay jaani ciidamada la dhigin si kastoo ay ahaato ra'iisul wasaare Roble ayaa isniintii shaqo joojin ku sameeyay Fahad Yaasiin wuxuuna agaasimaha cusub ee hay'adda u magacaabay sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu cambaareeyay talaabada oo madaxweyne Farmaajo ugu magacaabay xilka cusub Fahad Yaasiin oo ay sheegeen in ay tahay mid baalmarsan sharciga laguna carqaladeynayo howlaha doorashooyinka dalka sidoo kale qoraal la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka saacado ka hor ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaanle sare Yaasiin Farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne Farmaajo kadib munaasabad ka dhacday xarunta sida qoraalka lagu sheegay wadooyinka soo gala dhismaha xarunta nabad sugidda ayaa aad loo adkeeyay maanta meelaha qaar ayaa lagu arkayaa ciidamo fara badan waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ay tagaan taliyaha uu magacaabay ra'iisul wasaaraha iyo saraakiil kale sida ay wararku sheegayaan in kastoo walaac laga qabo khatarta ka dhalan karta haddii labada taliye ee la magacaabay ay xarunta isugu tagaan Fahad iyo hay'adda uu hogaaminayay ayaa lagu eedeeyay kiiska Ikraan Tahliil oo lalaa tan iyo muddooyinkii dambe Nisa ayaa dhawaan sheegtay in Ikraan ay dileen xoogaga Al-Shabaab warkaas oo beeniyay ururka Al-Shabaab xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa gashay marxalad cusub
khilaafka labada mas-uul ayaa si guud u saameeyey warbaahinta qaranka. Warbaahinta dowladda bogagooda internetka ayaa markii hore soo geliyey xeerka madaxweynaha, balse daqiiqado kadib ayaa laga saaray, waxaana beddelkeed lagu daabacay qoraalka ra-iisul wasaaraha ee jawaabta u ahaa xeerka madaxweynaha. dad badan ayaa qaba inay muuqato in warbaahinta qaranka in ay u janjeeraan dhinaca ra-iisul wasaaraha, inkastoo weli wasaaradda warfaafinta aysan arintaasi ka hadlin. Zaynab Abuukar, VOA, Muqdisho.